kooxda al-shabaab ee joogtay deegaano ka tirsan galgaduud iyo gobolka shabeellaha dhexe xaaladooda hadda xaggee ku dambeysay. kooxda ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay la kulmayeen cadaadis aad u daran oo aysan hadda ka hor la kulmin. xog dheeraad ah oo aan ka helnay deegaanada ay kooxdan ku sugan yihiin ayaa sheegaya in kooxdu ay ku sugan tahay xaalad aad u adag, waxaana xaaladda ay kasii dartay kadib markii ay diyaaradaha dagaalka soo galeen, islamarkaana ay meesha ka saareen in kooxda al-shabaab ay si kooxa markaasi ay u wada socoto amaba ay hal meel iskugu yimaadaan iyagoo ka cabsanaya in diyaaraduhu ay duqeeyaan. sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe waxaa laga abaabuday macawiisley aad u badan, taas oo dhabarjab ku noqotay kooxda al-shabaab. sawirkan arkaysaan waa ninka lagu magacaabo Fu'aad Shankolo. Fu'aad Shankolo waxa uu ka mid yahay madaxda sarsare ee kooxda al-shabaab. wararka iyo xogaha aan helnay waxay sheegayaan in Fu'aad Shankolo uu ku xayiran yahay ama ku go'doonsan yahay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, iyadoo kooxda al-shabaab ay isku dayeyso inay Fu'aad Shankolo ka bixiso gobolkaasi islamarkaana ay deegaano kale ay geeyaan, laakiin ilaa iyo hadda waa u suurageli la'dahay. kooxda al-shabaab dhowr mar ayay isku dayeen in Fu'aad Shankolo ay ka bixiyaan gobolka shabeellaha dhexe oo ay deegaano kale geeyaan, hase ahaatee waxay la kulmeen dagaallo aad u qaraan. gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka galgaduudba waxaa markaasi xoogeystay macawiisleyda dagaalka ku qaadaya kooxda al-shabaab. hadda ka hor ma dhici jirin in deegaano ka tirsan deegaanada ay maamulaan kooxda al-shabaab in inti la weeraro magaaladaas gudaheeda wax looga soo dilo islamarkaana laga soo laabto, taas oo muujinaysa in kooxda al-shabaab ay awoodoodii aad u wiiqantay. marka laga reebo cadaadiska dhanka dagaalka ee haysta kooxda al-shabaab, waxaa ugu daran dhanka cuntada oo ma haystaan wax ay ku noolaadaan. toddobaadka hore waxaa la arkayay raashin u rarnaa kooxda al-shabaab oo lagu gubay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. raashinkaasi oo ku jiray jawaano markaasi afka ka furan, taas oo muujinaysay in kooxda al-shabaab ay ka soo aruurisay raashinkaasi dadka deegaanka. hase ahaatee raashinkaasi waa la gubay oo ciidamada xoogga dalka ayaa gacanta ku dhigay iyo macawiisleyda, islamarkaana waa gubeen. al-shabaab 19 sano ilaa 18 sano ugu dambeeyey waxay ka dagaalamayeen Soomaaliya, hase ahaatee kuma aysan guuleysan inay qabsadaan Soomaaliya. maalmihii ugu dambeeyey waxaa la arkayay warar dacaayad ah oo markaasi sheegaya inay qabsanayaan magaalada Muqdisho, hase ahaatee al-shabaab 15 sano ka hor ayay qabsadeen inta badan magaalada Muqdisho, sidoo kalena koonfurta Soomaaliya inta badan way qabsadeen. waxay ku haminayeen inay u gudbaan dalalka dibadda ah. waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo We will establish Islamic rule from Alaska and Chile to South Africa, Japan. awoodda xilligaas ay Soomaaliya ku qabsan waayeen amaba ay ku xajisan waayeen hadda ma haystaan shabaab. waa su'aal isweydiin mudan. waayaha al-shabaab ayaa xilligan waxay u muuqdaan kuwo gabangaba ah, mana muuqato fursad ay kooxda al-shabaab Soomaaliya kusii joogi karto